السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي جايس ميل والبا دنيا كجوجتان waa super woman youtube channel ka daawanaysan waa yani official waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u maasantiin dhamaantiina isku soo noqod wanaagsan insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaad dhamaantiin iyo caafimaad qabtiin sida aniga idinku caafimaad qabo sidaad ogeedeenba maalintaas waxaa soo geliyay videogaas oo dad badan ay ka xumaadeen videogaas sida hore u sheegay waa ma dhameystirneen dadka badanaa waxay isweydiinayeen su'aalo laakiin su'aalihiin waa idinka jawaabaa insha Allah horta dadka badanaa waxay weydiinayeen gacantii waatanaa ma sha Allah ina u jeedinay in kala ma ogi waatan way fiican tahay alxamdulillah shantii bishii May la soo furay ma sha Allah way fiican tahay alxamdulillah sidoo kale inta waxay isweydiinayeen dadka su'aalo badan su'aalahaas oo ah qofka Soomaali miyuu ahaa mise ajnabi Soomaali oo ahaa sidoo kale inta maxaa idinka dhaxeeyay waxay naga dhaxeeyay haba yaraatee ma jirto oo walaaltinimo ahayn wuxuu ahaa qof aan guri isla deganeen muddo badan oo aan isna qiinay oo aan ceesho ahayn aan yani waa taqaanin dad markay guri isla degan yihiin laakiin waxaa jirtay in yani uu naga guuray markii taariikhda markii yani bisha Shacbaan dhexdeeda naga guuray dad is yaqaano oo guri isla deganaa oo intaas is yaqiinay oo ceesho milixa ahayn alxamdulillah marka sida wax u dhaceen baaraba inaan idin sharaxo iyo sida wax ay ku imaadeenba sidoo kale inta dadka qaar waxay isweydiinayeen maalinta dad waxa arkay dhahaaya maalintii Isniinta ahayd maalintii Ramadaan 7 ahaa Isniin ma ahayn oo Jimce ahayd horta muhiimada ma aha inaad dadka dhan qanciyo laakiin dadka wanaagsan su'aalo ay soo weydiiyaan inaan ugu jawaabay sida wax u dhexeen inaan u sharaxo diyaar wahay 7 Ramadaan waxay ku beegnayd maalin Isniin oo maalin Jimce kuma aysan beegneen oo Ramadaan wuxuu dhashay maalintii Talaadada ahayd Isniinteedina waa maalintii dhibkii gaaray dib maaha markii taas laga imaado oo aan taas ka gudubno sidaad aragteen video isbitaalka waa idin tusay hadda ma la ogolo in la duubo laakiin kisaas xataa si qarsoodiya loo duubay alxamdulillah waatana gabartiini maanta fiican sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sheego waxyaabo fara badan iyo wixii sida u dhaceen yaas hadii videoga idinku dheeraado waxaa idin leeyahay karaal noqda maadaama aad jeclaysateen inaan idin sharaxo anigoo weliba xilligan aanan diyaar u ahayn inaan yani full documentary soo gudbiyo waxaa igu qasbay waa idinka wuu naga guuray Shacbaankii dhexdeeda wuxuu dhahay waxaa rabaa inaan idin la afuro wuxuu soo wacay maalintii Axadda wuxuu dhahay biri shaqada off day waaye waxaa rabaa inaan idin la afuro sidaas darteed sideed u aragtiin waxaa dhahay dhib ma lahan okay dhib ma lahan biri la soo maahan okay dhib ma lahan saas markay ahayd maalintii Axaddii maalintii Isniintii oo waxa aanay dhibkii ugu dhici rabo maalintaas dhibna yaan la dhihin dhib ma dhihi kariye dhibka Ilaahay iga badbaadi rabo oo laakiin isku dayga lagu sameeyay dadka badanaa markay dhiig arkeen way ka dhaxeen maalintaas maalintii Isniinta ahayd buu dhaaway idin imaan oo idin la afura okay ala dhib ma lahan waana imaan kartaa waa caadi maadaama dad intaas oo meel isla deganaa intaas isqiin aan ahayn inaa qof kale u soo afurana waxa waaye ama dad kale u soo afurana waa wax iska caadi ah okay yaa dhahay maalintii Isniinta ahayd aniga 7 saac ama waxa ay kicsan asteexo ilaaday markii salaada soo dhow salaadii isku diyaariyay alxamdulillah salaadii duhurka markaa dukadey kadib 8 saac amal markaa la gaaray afurkii waxay ahayd inaan sameeyo laakiin wixii qornaay baa dhici lahaay wixii qornaay baa dhacayo waxaa dhacday in hurdo ay qabato oo aan isdho 8 saac afur lama sameeyay markii aad hurdada ka soo kacday bacda casr amal iska sameey inuu asi imaaro xataa qalbigayga Ilaahay wuu ka saaray anoo ogna inuu imaanayo bis waxaa dhacday in aan iska seexdo oo aan iska hurdo markii saacada 10 saac iyo wax la jiraado meelahaas amal baa waxaa ku kacay wicitaankiisa telefoonka caadiga oo albaabka taaganahay albaabkayga fur waa soo baxay albaabka markaa ka furay wuxuu watay boorso handbag markaas Ilaahay amarkiisa aan ma jecel dadka afaarood inaan galaan qof wuxuu watay inaan weydiyo waxaa dhahay maanta boorso wadataay kaasuu dhahaa sidaad ogeed baa aniga boorso la'aan ay hayso marka idinka guuray boorso ma haysanin boorsada saas u soo gatay boorso marka boorso kastoo weyn oo handbagayeed markaas waxa ugu daray ana mid buugaag badan noo yaaleen buugaagta iyo wixii hal meel isku geeyay laba xaba oo tarad qashinka geeyay hadaan ogaan lahaa waa ku siin lahaa waxa maqli jiray qof aad ku tiiso tulayso hadana ka fataa tulayo hada waxa waaye laqdaba ilaahayna meel isla galaan qofka bini aadamkana waxa waaye halkan haduu ka nool yahay ilaahayna la jiro wax ka halaaway ma jirto qalbigeena hadii ilaahayna qalbigooda daalacda ma hane ma daalacdo qalfoofta alxamdulillah markaas dhacday wuu imaaday bis tiina waxa ku jirta balkoonka telefoon ay ku hadlaysa video ay duubartay balkoonka iyadoo ku jirto u tagay aan markaa imaado kadib
salaadii waxaa la gaaray casirka marka oo asiimaada kadib wax yar la joogay salaadii casirka la gaaray nasteexa maysan joogin laakiin aniga iyo macalinka iyo tiina guriga waa wada joognay tiina u galay balkoonka cabaara tiina meesha ku shaqaysan aan salaadii iska aaday salaadii casirka la gaaray salaadii casirka iska aaday salaadii casirka alxamdulillah waa soo tukaday waa imaaday fadhiga ku soo laabtay asii tiina oo sheekaysanayaan tiina markaas waxay dhahday video waa duuban rabaa balkoonka iyo xig balkoonkii uu soo xiray videoga duubanaysa idina asna banaanka oo iska imaaday anagoo saas oo inta halka sheekada marayso baa waxaa imaaday nasteexa meesha lagu kaftamay waa iska joognay bis wax dhibaato ama qof shaki laga qabo ama qof uu dhibaateena ama dhibaato idinla imaanaa la isdhahay ma aheenno qofku wuxuu ahaa qof aan guri isla deganayn oo aan isla joogi jirnay oo aan isla cuntayn jirnay oo markii hore aan isla deganayn qof shaki ka qabtay malahan tiinaa kaligeeda guriga loogu tegi jiray aniga nasteexa waa iska bixi jirnay ilaa iyo habeenkii xilli dambe aan iska imaan jirnay oo markaa howlaheena soo dhammaysano sidoo kale ani kaligeeda laga tegi jiray oo wax dhibaato ah ama qof dhibaato u geysanaa la isdhahaaya xataa ma aheenin qof aan aniga ka shakisanaana ma aheenin oo qof walaalu ahaa oo adana afur noo soo doontay bis intaas markay dhacday kadib waxaa dhacday in afurkii markuu soo dhawaaday nasteexii tiina ay soo libistaan dhahaan ayaaniita lacag ma haysataa sababtoo ah wiilka ma ahin wiil laga shakaysan yahay way iska baxeen wax isdhaayeen maadaama wax xaafad uu soo afuray hadduu maqaayad rabo maadaama si shaqada oo off day ka ahay asaa maqaayadka afur lahay inuu gurigu iska joogo oo maanta waqtigeedana qaato iska rabaa bis way imaadeen waxay dhaheen ma haystaa lacagaa ku afurto haa alxamdulillah waa haystaa way baxeen markay baxeen isla markii maqribkii soo dhawaaday aniga waa baxay maqaayada hoosaa tegay maqaayada hoos markaa tegay waxaa kasoo gaday cabitaan iyo waxaa kasoo gaday waxaas cabitaan iyo bariis kasoo gaday waa imaaday markaa imaaday guriga kusoo laabtay wili afarkii lama gaarin wax yar baa ka dhidhnaa waxaa dhe kuugu jiraa food banda waxaa yaqaanaa dadka badanaa Malaysia jooga dadka kalenta way yaqaaniin waxaa waay application oo cuntada laga dalbado haa buu dhahay markaasaa dhahay okay pizza burgerke waxaa rabaa inaad dalbo markaasuu dhahay maxaa isku dhawaysaa maya caadi waaye bariis maalin walba cuntaa camal pizza burgerke rabtaa markaasuu dhahay ka adi jeceshahay kaa jeclaa ani iska dhaafay adi kee rabtaa أنا محاربة بيتزا ربا أوكي بيتزا ما كاي ويا بيتزا طلب بيتزا أنا ضلبي بيتزا ما كو ضلبي وحد علي إن نيكي دليفري صوب عتمو أنا ودك تهاس عن سوق على عمتدي بيتزا ما كان ميسكي أساري عمتدي مش كدياري عمتدي حيد مقعد أي كان مش كدياري وحد كاري أفرنا أفركي على جاري دي عوا اسكجبي أصلا صدق عليه كارا أفرنا مركا ماشي معنا وحسنا من صلاة سيدا هوري نقوش الفيديو واركتين waxaa dhahay waa iska baxay oo qolkayga iska galay waa iska dukanay salaadii maqribka waxaa dhahay iska sii afur hay suugin may waa suuga may hay suugin iska sii afur okay oo dhahay waa iska sii afura miiska qadada asigoo fadhiyo ku afuraya ani ka tagay alxamdulillah waa soo dukaday markaas soo laabtay waxaa imaada asigoo fadhiyo waxaa dhahay sheeg kala afurne kaasoo dhahay inta maqneeda waa afur oo ani bariis marabo pizza ku haystay pizza cunay okay sasmiya hayo waayahay dib malahan ana hadda iska afuraay waa soo baxay waxa soo qaaday laba galaas wuxuu dhahay markii biyaha cab biyaha ma cab ugu celceliyo marka gadaal ka fikiray ama gadaal dib aan iska weydiyo waxa dhahay biyaha wuxuu cab ku dhahay arma intaad maqnad wax kugu daray wax walba macquul laakiin ilaahay wax walba iga celinaaye waxa dhahay aniga ma jeceliyo marka aniga gacanteeda ku sameeyo biyo cambiyo waxaas la shiiday afur ma jeceli biyo caadi ah jecelahay biyihii labadii galaas baa soo shubay mid waxaa soo saartay miiska anigu waa furi lahaa midna waxaa uu keenay fadhiga asigoo fadhiyo maadaama isdhahay qof sooman buu ahaayo biyo cabitaan wax ku taraayo biyihii uu keenay markaa laabtay oo isdhahay ku laab miiskaagii afur markaa isdhahayna waa kanba markaa miiska saa loo istaagay kursiga anigu san usoo jiidanayo oo midi dhunta iga saaray midida dhunta markuu iga saaray waa maxay waxaa dhahay maxaa qaldan markaasuu dhahay wax qaldan ma lahan laakiin waa inay isdhiibtaa naftaada ama bii kale gabarnimadaada markaasaa dhaha horta maxaa qaldan aniga dad walaalaa in qof dhan oo gurigiisa kugu soo dhaweeyey oo maxaa qaldan maxaa kaasiya sheedaankan maxaa waaye markaasuu dhaha waxaas ma jirto labadaas midaa soo gelaysaa marka kaftan aan umaleeyahay marka aad midida inay dhab rumaatee tahay markaa arkay midida sidaa idin sheegay waa midi weyn ahayd mididana aanaka gurigeena ma aaminin midi gurigeena tila ma ahaynin laakiin saa qiyaasaayo oo gadaalka qiyaas qaatay boorsadu ku watay bis waxaa dhacday mididii inaa la qabsado gacanta waatna ayna arkaysin in kale ma ogi dhex gashay iga jeexdo mididii markaa la qabsaday kadib waxaa dhacday inaan isku soo jeesano aan isdagaano aan iska celiyo alxamdulillah iska celiyo malaahi laakiin ilaahay iga celiyo kadib markay sidaas dhacday mididii markaa kula dhagay kadib mididii hadda uu iga xoog badan yahay qofkay markii saan isku dhagna cabar
oo waa ka fuqay waa ka cararay waxaa ii dhawaayay jikada u dhow miiska qadada qof walba uu ogyahay jikada u dhow jikadii aa ku cararay jikadii markaa ku cararay loogaa gashtay jikadii markaa loo gashtay misdheheenin jikada loogeeda banaankaa laga soo furi karaa intaasoo sano weligay ma tijaabinin in banaan laga furi karayo in kale jikadii banaanka oo kasoo furo marka oo kasoo furo qolka yar aad arkaysaan oo dhiiga yaalo oo storka meeshaas haddana sii galay markaa sii gala waa soo riixay albaabka asigana waa igu soo riixay waa isla riixna cabaar markasaa u riixayna waa dareemi kartaa laba qofood ani inuu igu soo furo aad diidanahay inaa xiraa rabaa asigana wuxuu diidan yahay inaa xiro uu igu soo furo rabaa marka cabaar ani gacanteeda dhaawac waa markaas asiga laakiin dhaawac maaha waa riixooyaa laakiin tabar malihi laakiin waa riixooyaa alxamdulilah saa u riixay marka dambe waa daayay tabartii ayadeedas waa daayay markaa daayadiisi wanaag waxaa ku dhacay saanta albaabka markaa saan ugu daayay ilan xoogaa loo riixayay mididii asigii inay iskula dhacaan sariirta markay iskula dhaceen midida alxamdulilah midida soo qabso inta is dhihin anaa ugu hormaray waxaa kor dhacday marwaxad sida aad videoga hore ka aragtay marwaxadda meesha tiilay baa kasoo kor dhacday waxaa maqli jiray ilaahay ma kuu gargaaraa mase gadicaada uu guuridaa alxamdulilah ilaahay wuu ii gargaaray asina gadicaada ugu dhacay markuu meesha ku dhacay mididii markaan aniga waxaa soo qabsaday meeshii fiicneed asigana ilaahay amarkiis waxaa ku aaday meeshii kooda horeenta aniga aan qabsaday dadka qalaysay markay ku aaday hal gacan uu ku qabsaday hal gacan markuu ku qabsaday wuu isxakameyn waaye labada gacmood oo ku qabsaday labada gacmood markuu ku qabsaday anina midida saana ula haayaa saana iskula heesanaa kadib waxaa dhacday qof walba marka wuxuu ka cararaa qof walba qofka kale inuu midida keligiisa gacanta u galo sababtoo ana hadday iisoo gasho asigii waxaa waa u dhamaatay anigana waxaa isdhaha hadday asi u gasho waa u dhamaatay marka mididii saa cabaar iskula dheganeen markii dambe waxaa dhacday in mididii ay faniinta iyada laftirkeeda oo ay dhacdo markay dhacdo baa kasoo cararay alxamdulilah markaa soo cararay anigoo soo baxay meeshii kow aan isku dagaalnay ama aan isku qabsan oo midida oo dhunta iiga saaray meesha kow ahayd meeshii kow dhiigay ku daatay baa waxaa dhacday nasiib xumo inaan ku sirriqdo ama aan ku dhaco markaa ku dhacay alxamdulilah waxaa waaye qofka ilaahay la jiro mar waliba waxaa waaye ma guuldareysto markaa dhacay aan arkay markaas waxaa isdhaa maalinta adduunka ugu dambeysay aakhiro kuugu horeysa waaye maanta wax walba oo dhaco waxaa waaye dhimasho ebel marka hore waa isku diyaariyey markaa isdifaacaya waxaa ugu talagalay inaad dhinto oo dhimasho kama cabsanaynin waayo waa ogahay mar walba inaad dhinto laakiin waxaan jeclaa mar walba inaad sharaf ku dhinto ama sharaf ku noolaado mididii markay saas dhacday oo aniga meesha ku dhacay aniga meeshaa ku sirriqday dhiigaa ku sirriqday naftirkeeda markaa saan u istaagay oo ku sirriqday haddana mididii baa ka carartay waxay ka gashay ilaahay hadduu kula jiro qof bini aadana wax ma kaa qaadayo wallaahi waxaa dhacday mididii inay cararto fridge hoostiisa gasho marka waa qanacsanahay waxaa is dhooya xataa haddii mididii intuu soo baxsanayo horta wax walba waa samayn kartaa waa ka carari kartaa waa ka cararay qolkaygaa soo xirtay mididii markay meesha gashay asina meesha ku dhacay waxaa waaye asigna dhaawacaa soo gaaray bis oo midida markii la isla qabsaday ani markii dambe ilaahay ii gargaara hal gacan laakiin asi laba gacan iyo waxaa maqli jiray ciidan hebel ah meel hebel inta weerar ku qaaday baa iyaga la soo jebiyey alxamdulilah qofkii ilaahay la jiro waxaa waaye mar walba lilaahi laqdabo meel islama galaane wuxuu ila maaganaan ilaahay uu iga badbaadiyey waa cararay qolkaa galay dadka badanaa waxay soo diidayaan taleefonka intaa ka keenta taleefonka waxaa ka keenta taleefonka soo qolkayga maaha qolka ah galay taleefonkii aa soo qabsaday taleefonkii markaa soo qabsaday horta markaa qolka saan u galay waxaa maqlay gambaleelkii markaa maqlay waayaaba waxaas dhahay misdheheni marka qof guriga ka tirsanaa imaan sababtoo ah qof walba guriga ka tirsan wuxuu wataa furo oo albaabka iskaga soo furo marka waxaa jirta laba albaabka banaanka iyo albaabka gudaha kan gudahana weligiis lama xirin kan banaankana waxaa waaye qof walba furuu wataa qof walba guriga ka tirsan furuu wataayo ma garaacayo marka qof kaleento oo iska imaado uma leenayo laakiin ani qalbiga ii qaboway isla markii markaa qolka saan u galay waa isku aamini waayo qolka markaa loo gashto waa isku aamini waayo waayo waa lasoo furi karaa musqushiyaa sii galay waa soo xirtaa haddana loogaa soo gashtay taleefonkii aa wacday taleefonkii markaa wacday markaasaan taleefonka u wacday marka gambaleelka marka lasoo garaacay horta taleefonka markaa wacday nastaxa wacday albaabka ma furtiin markaas way ugu dhamaatay markaasaa ogaaday in albaabka dhexda uu si qayaano u xiray markaa aniga suuliga markaa aniga salaada aastay inuu si qayaano u xiray markaasaa ogaaday albaabka xataa inuu xiran yahay ma ogeyn ileen hadda waxaa waaye qof ayaan mididaas u soo qaatay walba geesinimo ma lahayn wuxuu isdhahay qofka banaanka hadduu ka imaado albaabka iska soo furaa qof cid walba og albaabka dhexda wuu xirnay ani ma ogeynin marka gadaalaa ka ogaaday markii ay dhahdeen nasteexa ma albaabka furtid war albaabka ma furaaye albaabka maxaa furaa macalinkaa taagan albaabka war macalinka ha taagnaadee aniga waa dhimara waa tacbaana ahayd waa dhimara waa dhiigayga baxooy midiyaa ligu dhuftay isoo gaar waa yaabtay ani taleefonka markaas way ugu jartay macalinkaas oo wacay markaas macalinka codkiisa markaa maqlay ani waa soo dhiirada marka waxaas dhahay wax ma kaa qaadi karo laakiin inuu cararo ma ogeynin
albaabka soo furay albaabka markaa soo furay macalinka waxaa arkay halkan oo hadda video aan ku duwaayo waxay ka xagga taagan oo yaaban oo asina taleefanka inta nasteexa waxa qaylinaya dhaayo dhiiga meeshan yaalo wax dhacayna ma ogi ana u sharxin wiilkii asina wuu cararay markuu macalinka isla markii maado asina wuu cararay بس كذب جبرا يشتى وحلا هذا شاتي يسقعته ودودناي فلانة لو وده شاتي قعم ولا وضع قعم ودودته جبر أو صوماليا أو هاس أو دكان دكان حافظين كيالو أو حلا وقوي ما نعصيه ونحسن أو ورناه إنه صبح أو مليسيد قف لقى شكينا أنا ما هنا قف بلدين كدجنا جبرا نتقانه هاي يعني سكورة قف عرايا ده قبلها هاي ما قبلنا هاي قف حجورة دجنا أمريانا وقف حافظ دجنا وخلوا له يقينوا سكورة حتى يقانوا وحلا وحلا جعما يحر ولا وادي مروا جعما يحر waxay raada waxa sameeyay meeshan guri ma ahan farmashiina ma ahan wax gacan isaga xirna meeyay shukumaana gacmiga u duubay haday bis markaas ay dhaadaan maxaa ku dhacay gabar ay soo dishay markaas ay dhaadaan subhanallah gabar san ku soo dishay maxaa iidan hooriyaansana ma xeedaad wiligay xataa misdeenin ayaaniito way wiligay misde xataa ma aaminin lahayn haday ayaaniito way alxamdulillah sidii uu ku baxsaday macalinkii ay imaaday macalinka markuu imaaday asigana macalinkii wuxuu isdahay boolis wax sakuuradkana wax albaabkii uu sii xiray الباب مركو يوصي حري أنا وديك بحوي ديك حتى أنا أسكحر حتى مقرتي وحدة هو بلا وديك أنا أسكحر وعرّا مر أنت وعرّا مر ثلاثة وقهضلا ورواد مر وايد سوجار ور أنت كبحي ديك دن رك وحاك ديك أنت أسكحر لا باكفر دي حسين أي مالي حسين مركو إمالي كده بدنا الباك أسو جبره معنيكي وبحي والباب كرو يجي حري مستحيل كينا إمالي مسيبره marka imaadeen albaabka sidaas loo furay dadka badan waxay isweydiinayaan qofka dheeysay tiina Cabdullaahi oo qofka dheeysay waaye qofka dheeysay Cabdullaahi waxa waaye Cabdullaahi Xaajiyo waaye waa taqaaniin waxay isla deganyihiin bo Xuseen Baabe waxay dheeysay Xuseen oo Cabdullaahi wax gaariga keenay bis markay intaas dhacday kadib isbitaalkiina waa aniga idinkaga sheekeeyay oo isbitaalka sidii la geeyay isbitaalka marka la geeyay kadib waxaa dhacday isbitaalka anigoo joogo oo wali xaaladeeda aan la ogeyn in sheekadii ay u kala baxdo qabiil dadka qaar qabiil dadka qaarna yani aniga ila jiraan bis markay saas dhacday aniga markaa soo kacay kadib waxaa la yidhaahday maxaa kuu qabanaa waxaa yimaadeen Fiinaan Isteexo Muniir iyo waxaa yimaadeen iyo Xuseen Baabe iyo waxaa yimaadeen Cimraan maxaa kuu qabanaa ma ana dhaa maxaa ii qabaleedeen qof dhibaataysan maxaa kale loo qabtaa waxaa ii qabanaysiin boolis ay bixiyeen اوكي انت جوابتك soo baxaysa suuleena jawaabtii soo baxday Muniir iyo jawaabtii soo qaadeen dadkii banaanka joogay u tagay waxay dhaheen alxamdulillah waa nabad qabtaa laakiin gacanta raajiga la saarmo jabna laakiin xididada gacanta xididada kamida qaarkood go'aan siiba ku yar oo faraha dhaxdooda iyagana way farxeen alxamdulillah sababtoo waxay filinayeen wax ka digana u soo baxay way farxeen alxamdulillah ay way imaadeen waxa dhahay ribad boolis ay qoraysiin wiilkii dhibaatada geystay wuxuu soo wacayay Tiina iyo wuxuu soo wacayay Nasteexo Xuseen iyo Muniir uu dhahay aniga wareega gabadh maxaa ku war wax ma ku sameeyeen wax inaa ku sameeyay xataa ma rabin aniga waa ismuranay hada waa beentiis waa dareemi kartaa laba qofood oo ismuranta maxamed meesha keeni karo wax ma ku sameeyeen wax inaa ku sameeyeen ma rabin wiliis waa imaha dil hadaartiin ana li ma hay maxaa saas u dhahay maxaa ka sameeyay teleefankii 150 mar soo wacay waxaa idin ku beer la xawsanaa dhahay aniga waxaa dhahay haddii aan maanta dhintaan ay xataa sharafa ku dhimanaa alxamdulillah waxaan qana qofku ugu horeeyay soo faraxsan dhinto qof faraxsan oo qoslaya dhimanaa wiligiin ma aragteen aniga maanta hadaa dhinta xataa waa faraxsan ahay laakiin asigana horta anoo ku qorinaa dhahay hadaa dhinta xataa anoo ku qorinaa dhahay wuxuu sameeyay ma jirtaba dibad booliskii ali soo qor waxay dhaheen dadkii shaqo meeshan qabiil iyo waxaas lagu xalinayo Soomaaliyeed community waa taqaaniin Soomaali dibkooda markii qof bala joogo community ahaan loo xalinaa aniga waa diiday waxaa dhahay ma jirto waxaas ma jirtaa hadaa walaalana haday hal soo qoraa dhahay bis wali soo qor warqadii ay keen isbitaalkii marka gabadhii waxay maaday isbitaalka markii wal wareysana oo waxay dhac wal wadiina way wareysanaysa si caadi ah u sheegayo anigoo shaqay waxba igu jirin oo caadi oo iska degan wax walba soo dhaceen ilaa waxaan wax laga qoraayo waa document galaayo waana wax sax ah oo dhacay marka ani ma qalqalsaneen ba alxamdulillah mar walba ilaahay aaminsanaa waxaan ogaa waxa igu dhacayna waxa ilaahay iga badbaadiyay iyo dhibaatada aan soo maray iyo halganka aan u soo maray inay wax walba ka weeyeen waa soo baxnay way imaaday dhaqtaradii wixii iga qortay markaas ay subhanallah wuligay ma arkin inaad qof aad camal ah waxa dadka kula socdaa qaarkood hadalka qaldooyaan adigoo dhibaato ku soo gaartay dhiigaaga san u baxay gacantaada san u waxaysan tahay maanta waxa si caadi qof aan waxba ku dhicin oo xataa qof kaleento ay taqaan ku dhicin camal oo hadloosa
waxaa dhahay alxamdulilah mar walba waxaa dhahay waxa ilaahay iga haya ayaa ka badan waxaan ugu dhacaayo bis markii gabadhii sidii iiga qortay wixii laga qoray warqadeedii anigoo cisbitaalka joogaa la ii keenay alxamdulilah waa soo baxay xaafadeeda soo aastay dhakhtarada sidaa ogtiinba qof markuu dhaawac soo gaaro waxaa dhahaa in la nasto laakiin nasiino maba jirto meel walba waa lagaaga wacayaa maalintii xigtay maalintii ani isniinta dhibaatada soo gaartay maalinta talaada 8 saac habeenimo ilaa iyo 8 saac galabnimo ilaa iyo 5 saac habeenimo waxaan taagnaa boolis aaba qofkii nasal lahay aaba qofkii dhiigga ka baxay alxamdulilah 7 maalmood markaas iskugu laalaabanayay kadib waxaan sameeyay aan nastay alxamdulilah dadkii Soomaalidii waa taqaaniin waxay noqdeen qaar hayraac ah iyo qaar qabiil ugu danaaniyay wiilka xigsaday haday u badataa ani dhanba waxa ila jirto 9 ama 10 aan ila jirto inta kale community Soomaalida way iga soo horjeesteen qaar qabiil iga soo horjeesto qaarkii kalentana ee dhahaan yani hayraac ay noqdaan walba maxaa gaaray gabadha sheeg waxaa maxaa ku dhacay gacanta leh wax ka gaaray dhiigeeda siiyana dadka dhiigeeda si ay dhahayaan waa dadaan halkaniina xataa isiiniya ama seeta xataa idin dadkii dhahay dhiigeeda siiyana waa fiiri waxaa dhahay ani dad waxba igama gelinaanay halka u socdo iyo halka u socdo waxba igama gelinaanay meesha ka imaada ogahay shaqana ma kuliyada dadka Soomaalina waxay igama gelin community waxay igama gelin taada kale hal cafi waa iika dhahaye qof ay ka qarinooyaan oo ilaa aan ay qarinayaan oo ayaga qarinooyaan maana cafiya qof haduu ku imaado xataa uu ku dhaho ama qofka ku keenana ku dhan qof qaladkaaga laba kana iska cafi markaas ama cafiya ama aadaaye ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi laga galaa bini'aadamka cafiyo anna wixii ilaahay iga badbaadiyay waa ogahay ina cafiyo waxba iguma qaadanayso laakiin horta yaaba cafiyaaba qof ay iga qarsanayaan ee iga hayaan ee iga quudinayaan maana cafiya wallahi been idin ma sheegayo aniga qof maanta igu sukeeyo oo rag ah aabahay waay aabahay ama walaalkay ama wiilkayga ama qof walba hadda ninkaaga ama walaalkaaga ama wiilkaaga ama aabaha haduu dhibaato geysto wallahi been idin ma sheegayo xabsiga hadii la dhaho waxa wuxuu saaran yahay meesha dadka lagu toogan lahaa aabahay waay ilaahay horta uma ka salaatin hadii la dhaho wuxuu taagan yahay meeshaas hadalka uu ku badbaada ayaan hala badbaadiyo hal iska daa dalida waa badbaadi wallahi wa billahi ta'ala qulubteeda ilaahay dalacanaya ma badbaadin lahayn sababta uu badbaadiyeen waxay tahay maanta aniga dimbigo galo shaqo ku mali adduunka aqrab shaqo ku mali ani laakiin maanta hadaa badbaadi biri dimbigo galo ana shaqo ku leh oo waxa kale haafa kale dimbigiisa marka qof oo criminal ah oo dimbigeesto gabar masaakiina bil ramadaan inuu ku xadgudbo isku dayay ilaahay uu baa ka celiyo mooyaane dhiigeeda saas dhulka ugu baxay maxaa xaqeedu u siinaysaa maxaa ka rabtaa hadii aadan wax u qaban karin xataa almiina ma ka aamusti waxaad u qaban karin ma ka aamusti maxaa meelaha u leedahay ana inta u dhan ana hebel ana inta u dhan ana sayeela wixii qaadi karta bal ana arag bal kale bal waan wada arkayna waxaan qaadi karnaa sidoo kale inta gabadhii cisbitaalka oo dhakhtarada waxay weydiisay wallahi way oo sabeen idin ma sheegay waxay weydiisay su'aalaheed hay'ad ragga Soomaalida sidee way ka waran ragga dhammaan فاساday no maxaa u nacaa rag Soomaalida waxay imaanayna rageen way fiican yihiin dadka maanta gaariga uu wada meel walba ii wada san ii garab taagan waa wiil Soomaaliyeed waxaan qof walba bini aadam shantan qorood leeyahay muslim dad walbana idinka ha ahaada ama anaga ha ahaade dad xun iyo dad wanaagsan way leeyihiin xataa waxaa dhahay dadka wanaagsan waxa leh qayb xun iyo qayb wanaagsan laakiin dadka qaar waxay ka tambadisaa qayb xun saas darteed raggeena ma wada xumaanahay ragoo dhan ma nacinaana maxaa u nacaa ragoo dhan dhibaato ma geysannahay asigana wuxuu ila damacsanaa ilaahay iga badbaadiyo wallahi intee waxay dhahay waxa tahay qof guuleystay waa guuleystay dhahay dadka nolosha ku guuleystay dadka nolosha ku guuleystay aan ku dareeray wiligay ma arkin qof aad camal waxay dhahay waxa amal marin ku siinayaa warqadan oo aad cisbitaal walba ku tiigtid ama maanta ama inta Malaysia joogtid amal marin ahaan ama heshiis aashan sa iga jawaabtay wiligay waxay dhahay qof dhibaato u geystay ee dhahay saas wiligay ma arkin nin naag bis qiyaamay dhahay markaas nima kadam intuu nacday waxay dhahay ma guursan adigna waxay dhahay sana oo hadlaysaa da'daada iyo waxay dhahay iimisnahan aqligaaga markaas dhahay muhiimada ma ahan daa qof bini aadamka waxa way intuu og yahay ama uu fahansan yahay saas markay dhahay ani booliska markay weydiinay dhahay ay community-ga Soomaalida sidee kula dhaqmaan waxa dhahay waxay la dhaqmaan si wanaagsan sababtoo ah aniga marabi community-gayga ama Soomaalideeda ama wadankayga dalkayga marabi in aan ka bixiyo feedback laakiin ayaga way xumeynayaan anigoo og 95% dadka inta jooga inay dad xun yihiin dadka qarinaya dadka xaqiiqi inay dugsiyaan rabaan baa hadana waxaan jeclaystay inaan community-gayga aan ka bixiyo wax fiican sababtoo Soomaalida dhacay ana biscaybe ana iscay qof asiscay wiligii ma arkin waa mid si aan isku caaya markay baa waxa ka bixiya feedback wanaagsan ebel waxay dhaayeen dalkeeneed Soomaali problem waay
kaasar dadkeena waa dad fiican waa dad ii garab taagan sababta uu dhahaayana waxay tahay Soomaali idinka camal ku jiro oo maanta san ilo ooynay iyo dabqanay qof walba fiican ku jiro calanka maanta gacanteeda ku xiran ugu xirno show ama qof qorantii ugu qabatay ilaahay calanka xirana ma jirtee waxa ka imaaday jacayl iyo qalbigeyga ka imaaday hadii aan wadankeyga aan hantideeda ku difaaci karno oo aan ku difaaci karno xooggeeda waa inaan afkeyga ku difaaca anigoo og idinka inaa xuntihiin dadka waxa ka hadlaya Soomaalida kale laakiin idinka waa fiicantiin أنا أب إن حنتين بعد أنا وحن ديار وهاي إنا ودن كي مجلس الدفاع صوتوا قف أجنبي مرة إنا ودن كي وحمان وش أما وفاكية ساس درت الصومالي ذا أنت حن ما كترجمة يعني أنت من أحسن بافيرنا ساس مركز عادي كده وصومالي ذي سيدا صلاة كلا بحي وحايقون نحتم بدنت أما يقويا بدنت قف زمرة قاد هاي محيط وقت ذا أصلا اسمه جلسة محيط صافو سميسة هذا اللي ما له تسيل هاد ما ضمانه سه ما اسكديبتو وهذا هويو هذا نجيب قبطو وقان جارة أيضا جبر وهويو هذا هرت أنا الشرف لين وتوجي يجعمي ما هو بالبسول دي لا وحي إلهي وقرية ما جس وقرية وأسطوري وحيت هاي إن يعني إلهها أسطورة وإن أنا عن كده ذا مركز دفتر نوارو دي من كلام وحواي الدنيا ومعان كده ومانين كو قرني مقع باكاهر مانين تي مرق ساران مدن دنيا وإن أفضل بشرفتي سؤالنتو هدي أنا دمان لها حتى وحواي فرحات بان دمان لها warqada aan qorayna waxay ku turjumaysaa in dadka loo sheekeeyo waana u sheegay mar waliba alxamdulillah sidoo kale inta ilaahay baa badbaadiyay ayadoo saas tahay oo wax walba aan ogaay baa hadana waxaan jeclaystay inaan dadkayga difaaco alxamdulillah kulay video waa aragteen ilaa hadda wali gabadhiina saaf ma ahan waxa waaye haddaad weysiin ka warqabo insha Allah taala waana arki doontaan waxyaabo kale inta marka intaasaan rabaa inaan idin sheego maraba inaan video ku sii dheeraado sababtoo videoga uu aad iyo aad weyn ku dheeraana intaas baa rabay inaan idin sharxo waxaan leeyahay horta hal sir baa rabaa inaan idin siiyo sirtaas oo ah horta dadka badanaa Malaysia jooga horta anigoo iskuulkiin amaanaynin ama idin sheegayno waxa ani Ilaahay idin naga dhaxeeyo idin sheegaynin waxay tahay dadka reer Malaysia way ogyihiin horta ani ilaa yaraanteedii maalinta Isniin Khamiis marmar waa iska soo jiray laakiin hal sano oo kaamil baa waxaan jeclaystay inaan xiriiriyo Khamiis walba Isniin walba halka asxaabteeda mar walba dhihi jireen maxaa waaye dambiga lagu leeyahay way ogyihiin video way daawan doonaan dambiga lagu leeyahay aad gudid maxaa waaye baa dhihi jiray mar walba dambiga lagu leeyahay maxay tahay maalin walba dambiga nahay hadal caadi oo dambi aan u maleynaa dambi noqdo waxaa dhahdaa jimco iyo sidii axad aacno Isniin ثلاثي أربع حنا قميصهم واحد واتاو ماركب أسبوع لو ما نقصهم ويا بيش نطبن معهم الحمد لله سنة كينا وابي بدن يساو سهدرتيد وحامر والبوقيه جري إذا ما دام أنت قفيدين جوجن ودن قرب الإسك جوجو إسك دي واحدة إسك بدن تاي إسكابل إسك تيم وحواي إن إلهي إذا كل حفظيو وحواي إسك صوم ريجل خميس ولا بيسني وبح من كده بس ريجل ولا لا أنا باهي سكوت شيء أنا باهي هنقدرين سيدا كنا أنت وحنا رباع قف والبق ومسلم إن قلبي نور صومالي إلهي قلبي إلهي إسكفره قر إلهي يعني مر والبكر جانو أنا إسكت عينه محاوى ذاتك أنا ما وضح معي محاوى أنت حنا إلهي سوها المليو أنت وناك سنة إلهي يعني حوصي در وناك وذ وناك وحارب قف والبو وحن كل دردار ميا إن والك عبسي قبضيو إن احترامه إن معرفتي على السوارل والله بيني دين مشي قف كديوات ذا سيجستي هل هبين با حواري هل هبين وحي هبيك عنك اليوسف ولا وآدي هذا ريح منتي لكن كدم إلهي وطوتي أنا هاي سبحان الله محاكا قلب عنك دوكا تنبت محاوى إلهي ما إلهي وأنا هاي إلهي حقها تصب ما هباراي صوت قف من آدم كهدي لها وارو وكسي درامان سمونا سنادو ما أنتين وحن لي قفل بنا وحن لي الصلاة والبمركة جتيد لو رجع عصمنا كهر مري لو رجع عن كذا ومري صلاة الصبح صلاة عصر ولا كهر مريا هل أنت كان كهر مري وأنا كهر مري كرتا وأنا كذا ومري كرتا لكن كان ور مري كان كذا ومري هذا الدنيا ده واحد قاعد يجرين مرور الدنيا كرينا كوبت باله وما سمع لكن عاوز أنا كذا كوبت باله إن شاء الله تعالى لما أنتين وحن سكدر دار من آخر كي بناجة وحن جعل هينا نقلنا كوبي جنة كوبا كل ما سيدا هكذا سكوا جعلنا هينا إن شاء الله تعالى أنا قد ما أنتين جنة إلهي نكون سيو أنت حنا إلهي سهنوني أنت هنوسنا إلهي هوسيادي عن بدنك على كعبسيدا إن شاء الله تعالى نسكسود عينه إذا كانوا حان الله وإن جعلها كي كان كواركاي ورجاي إنه هذا كلا نقض كان كي قانا خير كودعيه قفكيكم مقلانا ورجاي لكون كذا وش ما فرا فرحة بل سفر حدا يا
furaha guusha mar walbana haddii aad rabtid inaad nolol wanaagsan ku noolaatid waa inaad iska ilaawdo wixii hore ee tagay insha allahu tacaala hadda waa ii jeediin alxamdulilah wax walbo ilaahay wuu iga badbaadiyey ilaahayna siduu ii jecel yahay baan dareemay iyo alla ku xirnaanshaha waxa ay tahay alxamdulilah dhammaantiinna waxaan idin rajeynayaa meel walba oo dunida aad ka joogtaan in ilaahay idin badbaadiyo dalkeena iyo dadkeenana aan u duceyno ma ahan inaan ishabaarno alxamdulilah qof walbo waxaa waaye adduunkan joogo adduunka wax lagama qaadaya aakhira inoo darane adduunka xataa haddii lagu dilo oo lagu dilo faa'iide kuu tahay maahane wax khasaara kuma qabtid laakiin kuwii aakhiro badbaado jirkooda naarta ilaahay ka badbaadiyo ilaahay naga dhigo dhammaantiin waxaan idin dardaarmayaa qaybkii wanaaga insha allahu tacaala fideoga xiga intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah insha allah su-aalaha qabtiinna commentiga ugu soo qori kartiin bye bye guys